qaxooti Soomaaliyeed oo tiradoodu ay ka badan tahay 300 oo kun oo qaxooti oo ku dhaqan xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab sanado kala duwan soo micin bidix xerooyinkan iyadoo kuwii ugu horeysay ee xerooyinkan imaadeen sanadii 1991 markii dagaaladii sokeeye ay ka bilowdeen gudaha dalka qaxootigan ayaa waxay soo mareen marxalado kala duwan oo dhanka nolosha iyagoo qaxootigan marnaba aan loobaynin ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan mas'uuliyadda Soomaaliyeed ee wuxuu qabtay dadka ku dhaqan xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab ayaa waxa maskaxdooda ka guuxda waxqabadka iyo waliba waxyaabihii uu taray safiir ku-xigeenka dawladda Soomaaliya ee dalkan Kenya Cali Sheekh Maxamed Cali Bagedi dadka ku dhaqan xerooyinkan ayaa waxay ku xasuustaan mas'uul Cali isagoo marar kala duwan oo xaaladdu ay ku adkay dadkan qaxootiga soo booqday isla markaana gargaar dhinacyo kala duwan leh soo gaarsiiyay mar walbana la garab taagnaa dhibaatooyinka ay qabaan qaxootiga Soomaaliyeed ee ku dhaqan xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab iyadoo sanadii 2011 markii abaartii adkeyd bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya ay ku dhufatay qaxooti tiro badan oo Soomaaliyeed oo u badnaa xoolo dhaqato iyo waliba beeraley ay soo galeen xerooyinkan ayaa Cali wuxuu ahaa shakhsiga kaliya ee markasta ku soo laalaabanayay isla markaana soo gaarsiinayay deeq ka timid isaga iyo waliba dad kale oo markaasi uu la kaashaday iyo dadka kale markaasi deeqaha bini'aadanimada bixiya dhalaan fara badan iyo waliba dumar fara badan oo ku dhaqan xerooyinkan ayaa markii ay shaashadaha amaba tiifiyada Soomaalida ay ka maqlaan magaca Cali ayaa intooda badan waxay yihiin kuwa markaasi u dhagtaaga isla markaana xasuusta waxyaabihii uu Cali u qabtay intay joogeen xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab dadka Soomaalida ku jira xerooyinkan ayaa magaca Bagedi ayaa intooda badan waxay og yihiin inuu yahay shakhsigii soo garab taagnaa isla markaana dhibaatooyin fara badan ay qabeen la qaybsaday bulshada amaba ummaddu ayaa waxay tahay iyadoo midda ka maqraati furta qofka waxa uu qabtay qaar ka mid ah dadka ku dhaqan xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab oo Cali uga mahad celiyo waxqabadkiisa iyo waliba sidii wanaagsaneyd uu garab istaagay qaxootiga Soomaaliyeed ee ku dhaqan xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab waxa hadaladoodii kamid ahaa bismillahirrahmanirrahiim magacayga waxa la yiraahdaa Miir Xasan waxaan kamid ahay xeryaha Dadaab gudida xeryaha Dadaab baan kamid ahay waxaan u mahad celinayaa ninka la yiraahdo safiir ku-xigeenka Soomaaliya ninka la yiraahdo Cali Bagedi waxaan ninkaasu aad iyo aad baan mahad ballaaran ay u hayaan xeryaha Dadaab ee qaxootiga ninka caawiyay in badan buuna u hadlay in badan buuna wax u qabtay waxaan rabnaa marka ninka waxaan u mahad celinaynaa xeryaha Dadaab haddaan nahay aad baan ugu mahad celinaynaa qaxootiga bismillaahir rahmaanir rahiim waxa la yiraahdaa Maxamed Sahal Cumar waxaan kamid ahay mas'uuliyiinta xeryaha Dadaab waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa Cali Sheekh Cali Bagedi ninkaas oo ah safiir ku-xigeenka safaaradda Nairobi ee Soomaaliya aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinaynaa waxqabadka faraha badan ee yacnaha ka muujiyay xeryaha asagoo nagu soo noqday kaalmooyin yacnaha ka geystay aad iyo aad mataqaanaa mahad yacnaha Ilaahay baale hasa hatee wax weyn mataqaanaa xeryaha u taray waanan u mahadnaqaynaa asaga iyo mataqaanaa waxqabadkiisa magacayga bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waxa la faara Caafi Ibraahim waxaan kamid ahay odayaasha qaxootiga Dadaab marka waxaan u mahad ballaaran u jeedinaynaa safiir ku-xigeenka Nairobi Cali Sheekh Maxamed Cali Bagedi loo yaqaano marka mahad ballaaran ayaan soo jeedinaynaa inkastoo macnaha qaxootiga aad ugu soo laabtay marka waxqabadkiisana macnaha aad ayuu u fiican yahay marka ninkaas mahad ballaaran baan u soo jeedinaynaa hadii odayaasha Dadaab dadka Soomaalida amaba ummaddu markii ay markaasi dhibaatooyin ay la soo darsaan ayaa marnaba waxa niyadooda iyo maskaxdooda aan ka guyin cidii soo garab istaagtay isla markaana waxqabad la soo garab istaagtay Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol raadiyaha TV-ga qaranka Soomaaliyeed xeryaha qaxootiga ee Dadaab.